السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولسلام أصحابته meel kastoo aad caalamka ka joogtaan fadlan haddii ay markii ugu horeysay cid soo booqato fadlan subscribe saar insha Allah videogan waxaan kaga hadli doonaa reflex arc aad iyo aad ayuu muhiim u yahay wuxuuna aad iyo aad muhiim ugu yahay difaaca in protector inoo ahaado waxyaabaha superficialka ah for example haddii waxyaabo kuleyl ah ama wax ku mudaan waxyaabo saas oo kaleeta ayuu naga difaaca oo aad iyo aad ayuu marka muhiim nagu yahay this is waa stimula qofkaas masaabir ayaa galay this is a stimula the stimula wuxuu markaaba geli doonaa receptors then waxa qaadi doonaa sensory neuron kaasi wuxuu geyn doonaa central nervous systemka special spinal cordka sensory neuron wuxuu leeyahay melashid kaas oo isagu faa'iidadiisu tahay inuu axonka protect gareeyo maxaa hadii uu nafaqeeyo sidoo kaleete wuxuu ka caawiyaa impulsigu inuu ku dhex maro speed aad u sareeya this is was cell of the sensory neuron haddaba stimulahaas markuu soo galo impulsisku markuu soo maro waxa qaadaa axonka oo sensory neuron ka qaada sensory neuron kaas wuxuu spinal cord wuxuu leeyahay two matters gray matter and white matter this is a gray matter wuxuu leeyahay waa shape ka leeyahay gray matter and this is white matter haddaba impulsive markuu yimaado spinal cordka haddaba this is waxa loo yaqaan interneuron ama relay neurons this waxa jira hal spaces u dhaxeeya this is cell body of the relay neuron or interneuron waxa jira spaces u dhaxeeya iskuma dhegsana laakiin space kaas loo yaqaan synapse waa loo yaqaan haddaba impulse markuu soo galo interneuron kale isku biya interneuron kaasida then wuxuu shaqeeyaa motor neurons this is also sidoo kale waa cell body of the motor neuron halkaas sidoo kale halkan waxa jira space kaas oo soo galo synapse iyo jira haddaba information kaas wuxuu si toos ugu gudbaa motor neurons ka qaada ilaa iyo muscleska si responsive loogu baahnaa loogu fuliyo haddaba halkan markuu joogo information waxa la inform gareeyaa brainka iyo la inform gareeyaa but laakiin lama sugo inta brainka uu ka soo laamayo information kala soo process brainka lagu soo process gareeyo oo lama sugo intuu soo laamayo that's why hadii la sugo waxa ku dhacay delay-ga ku dhacay wuxuu soo kara qofka inuu dhaawac badan yimaado waxa laga yaabaa qofka markuu sparki mudo inuu ku sii socdo ilaa uu xoog ugu sii galo oo uu sii gaaro inta dareemayo laakiinse isla markaaba waxa laga soo celiyaa interneuronka lagu soo spinal cordka lagu soo process gareeyo dina laga soo celiyaa si toos ah waxa lagu geeyo meeshii qofku marka uu sida xanuunka u dareemaba isla markaaba uu kulbooda for example dab kuleel hadii aad gacanta soo taabato adoona arkaynin isla markaaba gacanta kula soo boodaysa that's why bas markuu motor neuron soo qaado dis wuxuu keenaa muscleska wuxuu sameeyaa contraction si shayga looga soo boodo wuxuu sameeyaa contractions uu sameeyaa that's why loo yaqaan reflex arc marka aad ayuu muhiim ugu yahay si aan iskaga ilaalino waxyaabaha for example marka aad bariiq socdo hadii dhagaxaad ku istaagto oo dhagaxaas kula rugmado isla markaaba waxa tilmaamaya in dhagaxaas kula rugmaday istimulihii waxa qaadaya neuronka oo soo turjumaya den muscleska markuu yimaado muscleska marka contraction uu sameeyaa in loo baahan yahay loo sheegayaa in uu muscleska oo dhan contraction sameeyaan si aad isku qabato adiga macna aanadu dhicin that's why reflex arc markaas aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay reflex arc shaqadiisuna iyo processka oo mooy sida loo process gareeyana waxa aan soo sheegnay marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad aad iyo aad uga fahanteen hadii ay tahay markii ugu horeysay soo boqoto channelkeena fadlan subscribe saar saad kuma noqoto ardayda ku xiran channelkan iyo asxaabta kale ee ku xiran channelkan insha Allah waxaan idinka tegaynaa amaana Allah meel kasta oo caalamka ka joogtaan waxaan idin leeyahay caafimaad iyo cimri dheer